بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT-ga iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waxashradani taxanaha ahaa xiisaa lahaa English language ama luqadda Ingiriiska elementary waa meelaha ugu hooseeya oo barashada Ingiriiska luqadiisa laga soo bilaabo marka elementary wax walba noqon kara dhanka iskuulka uu noqon kara marka beginnerski ama qaybtii ugu horeysay iyo qaybihii ugu horeeyay waxaan ku soo baranay bilowga sida alfabeetada sida hingaada qaarkood loo sameeyo iyo inagoo soo baranay test iyo English ama tijaabo ku samee marka casharkan waxaan ku baran doonaa insha Allah Cambridge face to face English learning elementary Cambridge طبعا وجامعة ودنكن كتالا ودنك UK United Kingdom بقرطة إنجليز كتالا waxay samaysaa dhowr boqol oo sano waa meelaha ugu muhiimsan Cambridge iyo Oxford ee laga barto luqadda Ingiriiska waxayna soo saaraan buugaag aad u fara badan oo lagu barto Ingiriiska intiisa badan adduunka marka casharadan waa afar nooc oo kala duwan kan waa kii ugu horeeyay face to face waji ka waji ama fall ku fall oo English kaasoo aan ku baran doono dhanka elementary aan ku baran doono ugu horeyntii waxaa halkan noo yaala Cambridge face to face English learning elementary-ga isagoo sidan ah oo waxaa ku jira kan waa multimedia CD room marka gebi ahaan waxaa download laga samayn kartaan iyagoo full version ah shabakada ayaa ka download gareyn doontaan insha Allah marka buugaag ayaa la socota saddex buug kaasoo ah face to face elementary student book oo ardayda ah face to face elementary workbook kan oo lagu sameeyo tijaabooyinka iyo qoraalka lagu sameeyo tabcan waa soo daabici kartaa ama print ayaa ku samayn kartaa iyo kan oo ah elementary teachers book macalinka kiisa ah isla markaan waxyaalo badan ka samayn kartid marka wuxuu wataa face to face CD1 CD2 iyo CD3 marka CD walba waxaa ku jira waqti ka badan hal saac oo aad raaci kartid wax alla wixii halkan ku aragtid marka way isla shaqeynayaan dhamaantood way isla shaqeynayaan marka xilliga ay ku soo gaaraan software-kan iyo videoga waxa ugu horeeya sameynaysa waxay noqonaysaa kan ayaad furaysaa waa lagu duubi karaa install face to face the hard drive waxaana habboon inaad ku duubtid haddii aad doontid mar walba in computerka kaliya aad isticmaashid laakiin waxaa loo isticmaali karaa auto start oo ah si automatic ahaan ayaa sidan loogu furayaa markii loogu furo waxaa kuu soo baxaya oo aad aragtaa face to face elementary oo multimedia runtiina waxay yiraahdeen dadka soo sameeyay ee jaamacadda Cambridge iyo institutionka luqadahan dadka Ingiriiska baranaya ka gacan qabta in ay tahay qaabka ugu wanaagsan ee ugu fudud ee lagu barto sababtoo ah waxaad arkaysaa wax walba oo luqadda Ingiriiska marka waxaan rabnaa halkan grammarka naxwi halkan yaala word list real world halkan waxa yaala a phone mess halkan waxa yaala progress iyo my test marka ugu horeyn waxaad ku bilowdaysaa grammarka halkan haddii sidan aad u furtid grammarka waxa kuu soo baxaya halkan search iyo leeyahay waxa kuu soo baxaya grammarka ama naxwaha oo nooc walba ayaa kuu soo baxaya marka haddii aan ku bilaabo halkan positive kan haddii aan ku bilaabo grammarka wuxuu leeyahay I am from Italy marka ku dhawaaqida aad ayay muhiim u tahay luqadda Ingiriiska xilliga lagu dhawaaqayo marka aan ku celiyo si fiican u dhageyso I am from Italy waxaan ka imid ama waxaan ahay qof Talyaani ah marka I hakat m kan la gelinayo equals waxay la tahay I am oo laga soo gaabiyey halkan wuxuu leeyahay you are in room C waxaad ku jirtaa qolka C ayaad ku jirtaa you are-na equals you are marka waad u jeedaa r kan laga soo gaabiyey he is from Mexico he is kan ayuu la mid yahay she is from Australia she kan ayay la mid tahay it's Maria Favia marka u jeedaa it is equals it is sana ayay noqonaysaa we are from USA we hakat re equals we are halkaasay ka timid they are from Spain
they are sanay noqonaysaa marka su'aasha WH where am I where are you from where is he from where is she from sidan ayay isku raacaysaa halkeen joogaa halkee ka timid halkuu ka yimid halkay ka timid iyo halkuu ka yimid halkeed ka timid magacaa where are we halkee joognaa what are your names magacyadiina waa maxay halkana where are they from halkay ka yimaadeen marka tibka ugu siina wuxuu yahay xilligaad raacdid you and your are singular and a plural in English waa muhiim marka singular markuu yahay kan kaliya shakhsiga iyo markuu yahay kan pluralka ah kala duwanaanka lagu sheegaya marka these activities practice this grammar be positive and WH questions marka waxaad raacaysaa mar walba ereyga ku dhawaaqida ingiriiska positive-ka qaabka u yeero qofka haduu yiraahdo I am from Somalia qofka fahmaysaa marka haddii aad tirahdid I from Somalia macno yeelan mayso waa inaad sheegtaa qofka ka yimid Soomaaliya oo adiga ah marka waxa raaca a subject pronouns and possessive adjectives ayaan raacda halkan haddii asana u riixdid waxaad arkaysaa a subjectigaas oo wuxuu ku saabsan yahay waa pronouns a possessive-ka iyo adjective-ka I my you your he his she her it is we our they their marka qaabkan ayay isku raacaan markuu subject u yahay pronouns-ka qaabkan ay isku raacaan I waxa waay my you waa your he waa his tusaale ahaan ma dhihi karo he isma raacin karo her marka laba irdig ay kala noqonaysaa marka tipska lagu siinayo wuxuu noqonayaa we use a subject pronouns with verbs waxaan isticmaalnaa a subjectiga pronouns anigoo isticmaalna verbs I am a teacher si fiican indhaha ugu qabo I am a teacher anigu waxaan ahay macallin ama waxaad leedahay they live in Rome waxay ku nool yihiin magaalada Roma they dad kale ayaa laga hadlaya they marka la yiraahdo they live marka we use a possessive adjectives with the nouns my name's yes or s a Rupert Giles it's her book magacayga waa sidan kan waa buugay marka uu dambeeyay wuxuu halkan leeyahay these activities practice this grammar I aniga you adiga ama my waxayga your waxaaga sidan ay kula baxay marka sidan ay isku raaca ingiriiskana xilliga xooga aad ka baratid wanaagsan oo aad ku hadli kartid communication aad ku sameyn kartid waxa dhacaya in aad fahantid ereyada grammarka ee qaladka waad fahmaysaa isla markii waxaad ka fahmaysaa maskaxda ayaa kuu sheegaysa ereygaas ma ahan sax I was coming tomorrow ma dhihi kartid tusaale ahaan luqadda ingiriiska marka lama doonayo wax la soo dhaafay past iyo wax oo future ama wax present in aad isku dhex qastid noocana marka maskaxdii iyo waxa fahmaya afkii ayaa si fiican u fahmaya kan wuxuu noqonayaa b a negative yes no question and short answers tusaale ahaan we make negative with not waxaanu sameynaa negative oo not ama ma ahan waa may oo kale I'm not a teacher ay u isticmaal I'm not a teacher macallin ma ihi you waan isticmaali karnaa we they aren't from Australia kama imaana waddanka Australia yidhaahdo aren't waxay la mid tahay are not halka ka timid mar qofka haddii ku yidhaahdo they are not from Australia and they aren't from Australia isku si ay u shaqaysaa he asaga iyada it isn't a famous it isn't waxay ka timid is not caan ma ahan famous waa caan qofka caanka he isaga
ama she iyada caan ma ah marka calaamad su'aalka waxaa soo raacda halkan yes no questions am I late qofku wuxuu haddii uu meel ballan ku lahaa uu yimaado qofka uu yimaado dadkii ay sugayeen wuxuu leeyahay am I late ma soo yara daahay ma soo yara raagay ayuu leeyahay marka iyo su-aasha kaloo imaanaysa waxay are you from Spain ma waddanka Spanishka ayaad ka timid is he she marka waxay noqon kartaa labadaba way noqon kartaa a musician ma qof musicada ciyaara ama fanaanba ma laxankuu sameeya waxay ahday musician is it from USA ma USA ayay ka timid waxan is it are we in room 5 ma waxaan ku jirnaa qolka shanaad are you from Sydney ma magaalada Sydney la yidhahda Australia ayay ka timid are they French dad ayaa laga hadlayaa ma Faransiis baa dadkaas marka a short answer a jawaab oo yara yar waxay noqonaysaa yes I am no I am not waa iska soo horjeedaa marka ama waa aniga ama ma ahan I am I'm not yes you are yes you are waa tahay no you aren't ma tihid yes he she is not qaabkaas u raacay yes it is no it isn't yes we are no we aren't yes you are no you aren't yes they are no they aren't marka qaabkan ay isku raacaysaa tibka lagu siinaya waxay noqonaysaa marka we can always make a negative a short answers with a s or re plus not you are not from Australia marka sidan ayaan ku samayn karnaa negative short answers ama a jawaabo a negative ah oo gaaban he's not famous no you're not no she's not iyo etc ay yiraahdaan these activities practice this grammar be negative questions and answers marka wuxuu ka caawinayaa face to face elementary oo ah interactive marka waxaa la yidhahdaa waxyaabaha flashka leh codka leh waxaa la yidhahdaa waxyaalaha aad arkaysa ayaa la yidhahdaa marka waa ka wanaagsan yahay book PDF la akhriyo waa ka wanaagsan yahay inkastoo buugga PDF-ka ula socdo marka halkan sii raac biiga sii raac questionska sii raac halkan waxaa sii raacdaa have I got positive waqtigaaga timeka ayaa lagaa doonayaa tusaale ahaan waxaan eegaynaa a present simple positive kaasoo ah I you we they aniga adiga iyaga oo iyadoo noqonaysa kan they marka laga hadlayo we anaga iyaga marka I you we they get up at 5 o'clock aniga adiga iyaga waxay soo toosaan aniga adiga annaga marka tabcan way kala tahay waxay u kala tahay I waa aniga you waa adiga laakiin intaan dhihi lahaa we ayaan dhihi karaa iyo they iyaga get up at 5 o'clock waxay soo toosaan ay 5 subaxnimo I you we they get up very early I you we they start work at 5:45 I you we they have an hour for lunch marka wuxuu noqonayaa a present simple positive ayuu noqonaya iyadoo la isticmaalayo aniga adiga annaga iyaga saas ayuu noqonayaa marka qaabkan ayaad u raacaysaa aad ayuu u fara badan yahay waxaana hubaal ah iyadoo waxaa ku jirta dhegaysi ayaa ku jirta markaa ujeedaa subjectiga kala duwan marka markuu halkan uu gaaro halkan ayaad aadaysaa kan labaad people and possessions marka bilowgii casharada luqadda ingiriiska ee shabakada ka baxa sologroups.com waxaan ka hadalnay in luqadda soomaaliga iyo carabiga uusan ku jirin p marka waxaa muhiim ah xilliyada ku dhawaaqidda aad baranaysid luqadda ingiriiska inaad iska ilaalisid ereygan oo ah p haddii loo eego kan kale afka soomaaliga waa b waa brother marka ma dhihi kartid people ma dhihi kartid waa people possessions waxyaalaha qofka uu leeyahay ama guri ha noqdo ama dhar ha noqdo ama gawaari ha noqdo waxay ahaadaan marka adjectives 1 iyo adjectives 2 ayaa halkan yaala haddii aan saan u furo listen to the adjectives and click to the opposites
click to start to begin. marka wuxuu ku leeyahay waxaan adjective halkan yaala dhageyso riix marka opposite-kiisa. marka haddii aan riixo halkan waxaa hadlayaa si fiican u dhageyso. marka wuu hadlayaa all kan uu ku yiri marka wrong waad ku laabanaysaa. marka markii aad maqashid wuxuu ku leeyahay easy a fast waxaa la doonayaa wax orod badan waa gaari. small wuxuu noqonayaa wax yar ayuu noqonayaa small. a cold wuxuu noqonayaa dhaxanta. horrible wuxuu noqonayaa wax xunoo sidan qaabkan u eg. a beautiful wuxuu noqonayaa ama dhar ha noqdo ama expensive wuxuu noqonayaa wax qaali ah. ereyadaas ayaan maqlaya markaa. ereyadaas ayaan maqlaya uu socdaa young uu socdaa. a short wuxuu ahaadaba ereyada waa kan. marka waad ku noqonaysa wuxuu ku leeyahay waxaad ka saxday intii aad maqasho dhanaa ee ka saxday waad ku laabanaysaa. waxaad leedahay waxaan doonayaa iminka adjective ayaan doonayaa. marka waxaa lagu leeyahay put the adjectives into the gaps kaliya lagu leeyahay. it is a new hotel only a night. ma dhihi karaa new hotel طبعا waan dhihi karaa laakiin cheapka bal aan ku eego kan inuu cheapka noqdo. cheap ayuu noqonayaa. London and New York are a big cities. A Ferrari is a fast car. marka waad fahmaysaa macnahaas ay ku socoto. These aren't the right answer. It is a difficult lesson. Morocco is a country, big country, new, difficult, old, hot. I've got an old computer, is very slow. His watch is very expensive. His old, new. markii sidaad ay gaarto waxaad leedahay halkan ayaa tegaysaa. waxaad leedahay check my answers dii aad tidhaahdid any correct answers then click halkan ayaad gelaysaa. marka waxaa lagaa doonayaa in aad saxdid ereyada halkan ku yaala. kadibna waad ku laabanaysaa. waxaad tegaysaa halkan ayaa tegaysaa have I got positive. halkan ayaad ka bilaabtay listen to Kate. dhageyso gabadha Kate la yidhaahdo put the words in the correct column in the table. kadibna halkan geli. haddii aad bilowdid waxay tiri well I've got a new computer. It's very important to have a laptop for my work. ila gabadha ayaa hadlaysaa. marka ereyada she's got a new computer halkan ayuu gelayaa. waa sii soconaysaa. waa dhegaysanaysaa. markuu kuu dhammaado dhegaysiga meelihii loogu turgay aad gelinaysaa. halkan waa ka istaajinaysaa. halkanna check my answers ayaa leedahay. ku dhammaato correct answer then click a flag ayaa saan riixaysaa. markii aad riixid flag uu ku dhammaado wuxuu kuu soo saarayaa answers ama jawaabihii aad doonaysay ayuu kuu soo saarayaa. marka haddii aad doonaysid caawinaad halkan ayaad riixaysaa. isla meesha ay ku laabanaysaa. marka waxaa leedahay family tusaale ahaan haddii aad tagtid match the family members a grandmother a grandson example mother father isku aadayn mother and father brother wuxuu la mid ahaanayaa kan a sister ayuu ahaanayaa kan brother and sister. marka auntie wuxuu noqonayaa iyo uncle eedo iyo adeer. adeer waa uncle eedana waa auntie. wife wuxuu noqonayaa xaaskii ayuu noqonayaa. husband wuxuu noqonayaa odaygii aabbihii ayuu noqonayaa. oo islaantii iyo odaygii isqabay ay noqonayaan tabcan. a daughter gabadhi ay noqonaysaa. son wiilka ayuu noqonayaa. a grandson wuxuu noqonayaa wiilka awooha u tahay. a granddaughter kan ayuu raacayaa. granddaughter grandfather wuxuu noqonayaa awoowe. grandmother kan ayuu noqonayaa. marka waxaan filayaa in aad qaabkaad u fahmaysaan things in the house waxyaabaha guriga yaala. much was the box on the picture waad raacaysaa kan tusaale ahaan haddii aan idhaahdo carpet kan ayaan soo qaadaya halkan ayaan soo dhigayaa. kaasi waa carpet waan fahmayaa. haddii aan idhaahdo a door waa fahmaysaa kan ayaa soo qaadaysaa. marka intaadan soo qaadin waxaad samayn kartaa a door ayuu kule waad dhegaysanaysaa.
marka qaabka loogu dhawaaqa ayaa muhiim ah haddii aan riixo kan a window waan soo qaaday halkan ayaan soo dhigaya a desk haddii aan idhaahdo waan soo qaadaya halkan ayaan soo dhigaya waan dhegaysanaya wuxuu leeyahay a table haddii aan idhaahdo a tableka ayaan keenaya halkan ayaan usoo qaadaya waan dhegaysanaya haddii aan idhaahdo a plant kan ayuu noqonaya bal aan dhegaysano plant si loogu dhawaaqo a plant ayaa la yidhaahdaa a coffee table coffeega ayaa agyaala haddii sidaan loo soo agdhigo halkan ayuu imaanaya a coffee table a chair kan wuxuu noqonaya halkan ayuu saan u imaanaya kulley a sofa kan ayaa sofa chairka waa kan halkan ayuu yaala a sofa waa kan marka markuu ku dhammaado 9 out of 9 qaabkaas u shaqeyna waana 2D ayuu noqonaya kan ku laabo marka aad ayuu fara badan yahay qaabka loogu dhawaaqana saas ayuu ahaanaya marka at times waqtiyada listen and click a time you hear click on start to begin 25 past 8 ayuu ku leeyahay 25 past 5 to 9 25 past 8 25 past 9 halkan ayuu ku yaalaa marka adiga ardayga ayaa lagaa doonayaa inaad soo qabatid oo aad tidhaahdid waqtigan ayaan maqlay waqtigan ayaan maqlay waqtigan ayaan maqlay saan ayuu soconaysaa waan ku laabanaya halkan aad ayuu u fara badan yahay marka waxaan rabaa inaan tuso a family photo tusaale ahaan halkan ayaad riixaysaa gabadhii waa hadashay waxay tiri recording 2 number 9 waxay tiri Kate ayaa la yidhahdaa gabadha waa gabar ingiriisada Tim ayay tiri halkan ayaa la galay come and look at these photos of my family kaalay an eeg sawiradan qoyskeena marka Tim wuxuu leeyahay okay ayuu yiri Kate ayaa iminka hadlaysa marka Kate waan fahmi karnaa right ayay tiri this is my sister Lisa and her husband Tom tani waa walaashay oo la yidhaahdo Lisa iyo odaygeeda oo ah Tom markaasi waxay leedahay wuxuu leeyahay Lisa a doctor isn't she waa ereydii ku laaba aan soo marnay sow ma aha dhakhtarad laakiin weli ma hubo waa calaamad su'aal yes that's right waa sax what about Tom muxuu sameeya marka he's a jazz musician he's very good waa shakhsi cayaara jaazka musica jaazka iyo cayaaraa aad ayuuna ugu wanaagsan yahay marka qaabkan ayay u soconaysaa marka kan keliya ma ahan waxaanoo dhan ayaa la doonayaa in aad eegtid kadibna halkan ayaad tegaysaa waa daily routine la sameeyo waxyaalaha maalintii la sameeyo oo dhan put the sentence in the correct order example I get up early I get home at about 7 I get up early I have a breakfast at home I start work at 9 I have a dinner I finish work at 6 o'clock. I leave home at 7:45. I go to bed at about midnight. I have a lunch in a coffee. Marka waad riixaysaa halkan ayaad riixaysaa waad dhegaysanaysaa siday sax ku yihiin ayaad saxaysaa halkan ayaan ku laabanayaa waxaan oo dhan ayaa lagaa doonaya inaad eegtid kan waa bilowga keliya waad aragtaa inta wax ay ku jirta oo lagaa doonayo in aad eegtid ilaahan ayuu soo gaarayaa shaqadoo kale waxaa lagu leeyahay put the words in the gaps keli meesha loogu talagalay Frank not here at the moment he's with a contract meeting a report with a customer tusaalean haddii aan idhaahdo kan halkan I've got marka waxaa muhiim ah luqadda ingiriiska markaad baranaysid ha raacin dialectiga ama lahjada looga hadlo waddankaas ee luqadaad ku baratay I've got ma dhihi kartid luqadda ingiriiska barashadeeda waxaa leedahay I've got a waa in lagu fahmaa haddii aad qof la hadlaysid haddii aan idhaahdo I work for an international pharmaceutical waa shirkadaha farmashiyaasha daawooyinka adduunka soo saara marka ku dhawaaqida aan ku celiyo I work for an international pharmaceutical pharmaceutical I like to read your on the conference marka waxaa lagaa doonayaa soo qaad meesha ku habboon geli adiga ayaa lagaa doonaya ardayga ah marka waa soconaysaa ilaa meesha ugu dambaysa gaartid oo kan keliya ah
review ayaad samaynaysaa a booking flight haddii ay kugu dhacdo oo kale tusaale ahaan waxaad doonaysaa halkan ayaad riixaysaa recording 12.10 marka telefoon ayaa dhacaya idinka ayaa maqli doona waxaa hadlaya qof doonaya in uu sameeyo a flight booking marka a travel agentigi wuxuu leeyahay welcome to call a flight my name is Helen erayadan si fiican aan soo marnay how can I help you sideen kugu caawini karaa Joe ayaa hadlaya oo ah a customer ama qof macaamila leh wuxuu leeyahay hello I'm calling about flights to Boston waxaan soo wacayaa flightka Boston when would you like to go goormaa doonaysa inaad tagtid on 24th of February that's a Saturday waxaan doonayaa in aan duulo 24 February oo maalin Sabti ah marka waxay noqonaysaa goormaa doonaysa inaad soo laabatid when do you want to come back goormaa doonaysa waa qaabka ay iskula hadlaan dadka tigiyada jaranaya qaabta ay noqonaya marka gal halkan si fiican u eeg marka waxaan filayaa dhankan grammarka waan fahnay word list ayaa tegaysaa kadib word list wuxuu ka bilaabanayaa a about tusaale ahaan eega markuu leedo determine marka determine-kan wuxuu noqonayaa use before a noun to mean one thing or person I need a car marka aad ayuu muhiim u yahay ereygan determinerkan aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa magac ka hor a noun before a noun magac ka hor ayaa la isticmaalaa to mean one thing or person inuu macnaheeda uu sheego inuu yahay ama shakhsi oo human a person ama wax kale things like baabuurka wax walba marka I need a car haddii aan yidhahdo kan I need a car soo noqonay about waa adverb close a particular number of time although not exactly that number or time marka ereygasaan u dhawaaqay eeg a close to a particular number or time although not exactly that number or time marka ma dhihi kartid ereygan exactly that ma dhihi kartid English oo qalad ah ayuu noqonaya that ma dhihi kartid waxaa leedahay that tiid waa inay u dambaysa aad maqashaa it happened about 2 months ago waxay dhacday 2 bilood ka hor to or in a different parts of the place she just leaves her clothes lying about ereyga sida loo isticmaalo eeg markaa marar badan ayay dhacday dhowr bilood ka hor meelo kala duwan ay ku dhacday mar walba waxay ka tagtaa dharkeeda oo meelaha iska yaala about marka lagu yidhaahdo preposition relating to a particular subject what was she talking about maxay ka hadlaysa marka to a different parts of a place we heard somebody moving about outside marka about them family accident noun cause of damage waa shil oo kale bad when bad things happen markay dhacaan wax maaragtay wax xun markay dhacaan accountant someone whose job is keeping records markaas aanay raacaysaa actor macnaheedu wuxuu leeyahay actress at marka la yidhaahdo ereyada dhan saanay raacaysaa kadibna marka kan uu ku dhammaado mid walba wuxuu kuu sheegayaa ereygana waa muhiim tusaale ahaan as daan yidhaahdo waa conject prep used to compare two things waxaa la isu barbardhigaa laba waxyaalood people dadka amount inta lacaga waxay ahaataba etc he's not as tall as his brother sida walaalkiisoo kale uma dheera while kana eg I saw James as I was leaving waxaan arkay shakhsigan la yidhahdo James anigoo ka baxaya ama ka tegaya meesha for this purpose use to describe something purpose marka waxay la mid tahay or someone's job she works as a waitress because you can go first as you're the oldest marka kuwan nambaradanna casharo badan ayaan kaga soo laaban doonaa insha allah haddii waa la yidhaahdo waa sii wadaysaa 1 waad ku laabanaysaa 2 way soconaysaa 3 marka word list markay ku laabatid halkan aad fahantid waxaad ku laabanaysaa halkan dambe ayaad ku laabanaysaa iminka waxaad tegaysaa real world codkan waxaad ku maqlaysaan dhanka iyo codka la socda iyadoo codda qaabka loogu hadlo introduction people marka dadka markay isbaranayaan introducing dad ayaan isbarayaa oo kale ana gabadha ilaahda Elena this is Roberto
kani waa Roberto shakhsi la yidhahdo Roberto ayaa jawaabaya hello Elena nice to meet you barasho wanaagsan iyadana waxay leedahay and you hadday doonto waa dhihi kartaa nice to meet you too waa dhihi kartaa and you waa la soo fududeeyey marka these activities practices real world language video ayuu leeyahay kan video yaa halkan yaala watch the video and click the correct answers halkan ayaad riixaysaa waxaa soo baxaya video oo interactive ayaa soo baxaya wax walba wata how old is Mia meet Mia Toby and Amy waa saddex qofood marka way wada sheekeen waa Mia waa 26 waan loo sheeg waa kaas waan fahan horaan ka fahmay 26 gali waan fahnay he's from London waa saaxiibo asxaaba 24 waa kaas Australia ka timid leeyahay where's Amy from Australia where's Amy from Australia horaan ka fahnay waxaan sheegnay waxa la yiri how old is Mia waxaan ka maqalnay Mia gabadh la yiraahdo inay 26 jir ay tahay Toby inanka la yiraahdo 27 jir iyo ugu dambeyntii Amy-na ay tahay 24 jir kadibna waxa la yiri Amy waxay ka timid Australia marka isagoo interactive ayaan fahnay real world kulaabo marka telling the time 1 o'clock 5 past 1 at 10 past 1 waad soconaysaa marka tibka lagu sinaa wuxuu yahay we can say quarter past to 6 or a quarter past to 6 we don't say the different we don't say 15 past 6 for other times we say minute 19 minutes past 6 marka waxay u shaqeynaysaa qaabkan ingiriiska englishka iyo kan mareykanka kala duwan tabcan anagu waxaan baranaynaa British English ayaan baranaynaa oo ka sii caansan kan mareykanka marka halkana waa si raacaysa sababtoo ah casharkan kaliya wuxuu u baahan yahay ilaa iyo 20 saacadood kaligiisa directionka haddii aad doonayso kale turn right midig u leexo turn left bidix u leexo go over the bridge waxaad kubraha ama buundada ka gudub ayaa lagu leeyahay go past the pub meesha qamriga lagu cabo sii dhaaf ayaa lagu leeyahay go along the street wadada ku sii soco it is on your left dhankaaga bidix ayuu kaa qabanaya dhankaaga midig ayuu kaa qabanaya waa kaa soo horjeedaa dhankaaga kale u jira marka these activities practice real world waxa la yidhahdaa dee waxaa kaa hor yimaado realityga maalin walbaad aragtid real world noqonaysa directionka haddii aad doontid waa kan waad furaysaa videoga aad furaysaa waxaa lagu leeyahay watch video daawo are the sentence true or false click through T F false marka waxaad maqashid ma sax ba mise waa run T u taaba ayaa lagu leeyahay marka waa saan ayuu soo baxayaa markuu soo baxo Amy is looking for a record shop waad raacaysaa marka anaga ma sugi karno kadibna asking direction saying goodbye xiligaadada goodbye have a nice weekend have a nice holiday have a good trip thanks qaabkan oo dhan waa everyday English ka hor imanaya uu noqonaya kadib waxaan eegaynaa halkan ayaan eegaynaa phonemes phonemic symbols kan waa symbols loo isticmaalo luqadda ingiriiska aad muhiim u ah iyo consonant sounds iyo qaabkay u yeeraan tusaale ahaan haddii aan idhaahdo kan sanaan u riixo time park waad raacaysaa soup kan haddii aan eego father ago marry right marka qaabkaas uu soconaya kanna waa aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah isagana wuxuu leeyahay kanoo kale ayuu leeyahay waa la raacayaa marka waxaa lagaa doonayaa in aad ereyada dhegta aad u dhigtid halkan aad riixdid haddii aan idhahdo kanoo kale television aad raacaysaa haddii aan idhaahdo kan dog red ereyada saas ayaa lagu dhawaaqa marka ku laabo mar walba ku laabo waxaad eegtaa ereygiisu u yeeray on iyo got saas ayuu soconayaa kadibna waxaan aadayaa progresska ayaan tegayaa overall markaad tijaabis ku samaysid waxaad eegaysaa meeting people where you from intii aan samaynay oo dhan progresskaaga iyo suu ku socdo halkan ayaad ka raacaysaa
marka mar walba ogow halkan waa ku laaban kartaa halkan ay wax walba ku yaalaan meel walba aad tegaysid wax walba aad samaynaysid halkan ay ku yaalaan progress kadibna my test halkan waa banaan yahay waxaa samaynaysaa test aday ku gooniya marka halkan waa ku banaan yahay click on unit for test maxaa samaynaysaa time limit samayso 5 daqiiqo kala samayso laakiin waa ka dulboodi kartaa waxaa leedahay waxaan doonayaa grammar ayaan doonayaa like kan ugu sareeyo ayaan doonaya kadibna waxaan leeyahay start marka aad bilaawdo waxaa leedahay click on correct answer what is his job he's a lawyer mobile phone number is your what is your kan ayaa saxa what's your mobile number we are from Italy he are lama dhihi karo I are lama dhihi karo kan inuu noqonaya tabcan is this your bag no he isn't no it isn't ayaa saxa where's Thomas from Thomas halkuu ka yimid I am from Australia he's from Australia it's from Australia marka kan ayaa saxa isla markaa fahmaysaa kadibna halkan waxaa yaala your language school in Oxford are you is your language school is ayuu noqonayo id ma noqonayo halkan waxaa yaala where is it from where is she from where is they ma noqon karto where is you ma noqon karo ayuu noqonaya kadibna what's her job she is a musician marka haddii aan wax qalno waana qaldaynaa tusaale ahaan haddii qalad uu dhacana waa dhacayaa markaas in room 27 we are in room 27 are we in room 27 where we kan ma noqonayo are we in are Maria and Juan from where are Maria and Juan from marka bal haddii aan dhammayno aan eegno waxaan qaladnay waxaan saxnay marka wuxuu noqday 10 out of 10 oo ah wixii loogu talagalay activity ayaan saan u saxnay marka qaabkaasi uu soconay mar walbana waxaad samaysaa halkan ayaa ku laabanaysa number 1ka halkan ayaa kasii bilaabaysaa war group haddii aan tago tusaale ahaan one word each group is different click on a word example red book green light click on book red green blue and a color Sunday Tuesday Germany Thursday Australia Brazil marka saas uu soconaya tijaabada waqti ayaad u baahan tahay inaad ku samaysid you need a time is essence ayaa la yidhahdaa timeka waa inuu ahaadaa mid adiga aad u qaybisay every day maalin walba haddii aad heli kartid ku hadlidda barashada luqadda ingiriiska waxaad u baahan tahay at least 2 hours ayaad u baahan tahay maalintii oo adiga ku gooni ah waa in codkaad dhegaysataa marka intaanan ka bixin waxaa idin tusayaa halkan noo yaalla desktopka noo yaalla kuwan ayaa noo yaalla buugga iyo codkana marka haddii sidanan u furo wuxuu noqonayaa face to face elementary conversation ay sameynayaan dad caadi ayaa ku jira kan oo ah kan interactive kan ayuu la shaqeynayaa halkana waxaa yaalla PDF ayaa yaalla PDF-kana markii aad furtid isla qaabkaas ayuu u shaqeynaya marka waan soo yaraynayaa si loo wada arko halkan waa kan face to face with a CD audio la socda kii hadda aan soo aragnay marka qaabkan ayuu u shaqeynayaa waad ujeedaa qof walba waa everyday alive ayaa saan u taallaa nolosha maalin walba ayaa saan u taallaa tusaale ahaan waxaan ka bila breakfast time haddii la soo galo walk in pairs what is on the Jazz Cafe menu marka cuntadii hore inaad baratid tusaale ahaan haddii aan barano qof walba waxaan filaya inuu yaqaano biscuit waa biscuitka aan aqaano caanaha tufaaxa bariiska rootiga la dubay rootiga toasted bread ayaa la yidhahdaa bread markuu yahay waa rooti keliya ama roodhi qofba suu yaqaano toasty la yidhahda waxaa la geliyay waa la kululay ama waa la gubaa sausageska waa hilib dusha iyo inta dambe laga xiray oo hilib la shiday la geliyay waa kalluun ama malay waa kan eggs waxaa la yidhaahdaa ukunta coffee waa naqaanaa waxaa la yidhahdaa maraqa ayaa la yidhaahdaa farmaajo ayay yidhaahdaan waa luqadda طبعا luqadda talyaaniga ayaa la yidhahdaa vegetable waa qudaarta ayaa la vegetable kan waxaa la yidhahdaa waa muuska waa orange juice waa naqaanaa cabitaanka liinta ah shaaha jaamka waxaa la yidhaahdaa fruit waxaa la shiilay oo la shiiday ayaa laga sameeyaa oo macaan ayaa laga sameeyaa fruitka intiisa badan waa hilibka waa fruitka fruits ayaa la yidhahdaa fruitka cereal qamadiga
la cunaya la yidhahda marka waa everyday wax ka hor imaanaya marka wuxuu ku leeyahay look picture on the table eeg sawirkan table halkan yaala then choose a correct word kadibna waxaad xushaa ereyga saxa ah marka wuxuu ku leeyahay I can count biscuit and apples saanu noqonay marka waxa kale oo muhiim ah kan waad u jeedaa is no editable waxba lagama bedeli karo marka waxaad samaysaa software waxa ku jirta shabakada la yiraahdo Nitro aan imkan isticmaal Nitro Pro oo link aan idin soo diri doono waxaad samaynaysaa Nitro san kugu furan ayaa waxa leedahay word igu bedel ayaa leedahay convert ayaa leedahay marka wuxuu noqonay editable wax walbo qoraal ah sidoo yahay ku bedeli kartaa waad u jeedaa halahan dhan waad buuxin kartaa fill the gaps ayaa lagu leeyahay hadda lama buuxin karo laakiin haddii aad Nitro aad isticmaashid oo soo dhalan garaysid wax walba Excel ay ku bedelaysaa PowerPoint image bay ka dhigaysaa wax walba laakiin Word ay ku bedelaysaa waad isticmaalaysaa my friends and I often go out for a meal of burger waxay ahaataba isu bedelaysaa adii umay kugu xiran tahay sida saxa kula hadad u bedeshid marka ereygan aad ayuu muhiim u yahay ma isticmaalin me and my friends ma isticmaalin asxaabtiisa wuu sheegay iyo aniga marka my friends and I yalaada laakiin ma oranaysid me and my friends ma oranaysid waa English qalad ah marka saan ayuu u shaqeynaya marka isku daya in aad tijaabina samaysaan kana isticmaashaan interactive-ka codkana la maqashaan buugaagtana dhammaan waxaad ka download gareyn kartaa shabakada sologroups.com iyo full version ayaad isticmaali kartaa marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh oo aan ku baranay luqadda Ingiriiska elementaryga bilowga waa Cambridge a face to face fall English a learning elementary wixii macluumaad ah casharkan iyo casharada kale mar walba info@sologroups.com ayaa nagala soo xiriiri kartaan anigoo ah Cabdinaazi Ismaaciil intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu